hooyadu waa halbowlaha nolosha oo idiyada oo la'aanteed dunida oo idil aysan jiri lahayn. waa dugsi uu soo maro qof walba oo bini'aadam ah, ha ahaado shiikh, madaxweyne, wasiir, caalim, askari iyo wax walba oo bini'aadam ah. Muuqaalkeena maanta waxaan uga hadli doonaa muhiimadda ay leedahay hooyada iyo sheeko dhex martay inan yar iyo hooyadii. ee ku soo dhawaada daawadayaal muuqaalkeena maanta. ugu horeyn intaynan muuqaalkeena u gudagelin waxaan kaa codsanayaa haddii ay tahay markii kuugu horreysay aad soo booqato janalkan inaad na soo follow garayso. wiil yar ayaa hooyadii weydiiyey, hooyo maxay haweenka la ooyaan, adigana maxaad ooysaa? hooyadii ayaa ku jawaabtay, sababtoo ah waxaan ahay haweeney. wiilkii yaraa ayaa wuxuu yidhi, warkaas ma fahmin hooyo. hooyadiis ayaa laabta ku qabatay wiilkeedii yaraa oo ku tiri, weligaa fahmi maysid hooyo arrinkan. intaa kuma harin wiilkii yaraa ee waxa uu u tegay aabbihii oo weydiiyey, aabe maxay haweenka la ooyaan? aabbihii ayaa ku jawaabay, dumarka waa iska sidaa oo waa iska ooyaan, naagahoo dhan ayaana iska ooya sabab la'aan. wiilkii kuma qancin jawaabta aabbihii. waa uu koray oo waa uu weynaaday oo waxa uu noqday nin wax badan kala bartay, laakiin su-aashii ahayd haweenka maxay la ooyaan kama bixin qalbigiisa. maalin maalmaha ka mid ah ayuu arkay nin xigmad badan. waxa uu ku yidhi, xigmad badanow, su-aashan iga shaafi. xakiimkii ayaa yidhi, adeer weydii su-aashaada. wiilkii yaraa ayaa wuxuu ku yidhi, xakiimow maxay haweenka la ooyaan? xakiimkii ayaa yidhi, ilaahay markuu abuuray khalqiga, haweenka waxa uu ilaahay siiyey awood gaar ah, waxaana la siiyey dumarka dhabar iyo awood aan la siin noolo kale. waxay u dulqaataan dhibaatada adduunka oo dhan. waxa uu ilaahay dumarka siiyey 2 gacmood oo xanaano badan oo laga helo raaxo iyo deganaan. waxay xanaanadan siiyaan ilmahooda iyo wixii la halmaala. ilaahay waxa uu dumarka siiyey awood gudaha ah oo ay ugu dulqaataan dhibka iyo rafaadka carruurta, silaca dhalmada iyo korinta ubadka. waxay leeyihiin dumarka awood ah inay u soo jeedaan ilmahooda daraaddii. haddiiba meel laga qabto ubadkooda habeen oo dhan, maalin oo dhan, nafteeda tiis ayay ka horumarinaysaa. dumarka waxaa la siiyey adkaysi midka ugu weyn oo ah inay ugu dulqaadato dhibka kaga imaanaya wax walba oo ku xeeran, sida inay ilaaliso carruurteeda una fuliso wax walba oo ay karto ama ay awooddo. waxay haweenaydu siisaa raxmad, farxad, xanaaneen ubadkeeda, saygeeda, walaalkeeda iyo aabbaheeda iyo intii wax u ah iyada oo idil. dumarka waxay ka samaysan yihiin naxariis, wanaag aan isbedelin weligii. hooyadu waxay ubadkeeda siisaa farxad iyo wanaag aan la soo koobi karin. xataa haddii uu dhibo ama ay ku dhibaatoto, waxay ku ilowdaa waxyar dhibka ubadkaas oo ay ka martay. beddelka dhibkana waxay siisaa jacan, korin iyo dhiirigelin. waxay ka saxdaa qalad walba ilaa ay u bilowda habka hadaaqa kelmadaha, erayada iyo qaab u hadalka. sidaa darteed oohinta ayaa la siiyey dumarka si ay ugu yarayso wixii dhib ahaa ee gaaray. markii ay faraxda way oydaa hooyadu, markii ay dhibaatooto way oydaa, markii ay wax gaaraan kuwa ay jeceshahay way oydaa, xitaa hadday ay kala maqnaadaan shaqsi ay jecleed, ha u ahaado wadaay, walaal, waalid ama jacayl, waa oydaa. oohintaas ayaa ka baabi'inaysa xanuunka oo dhan. halkaas waxay ka sii wadataa nolosheeda caadiga ah iyadoo farxad cusub la soo baxda. sidaa daraaddeed waxaa nagu waajib ah inaan ixtiraamno dumarka. haddii aad aragto iyadoo ooyeysa, hala yaabin ay la qaybso. u muuji wanaag, farxad iyo raaligelin. waxaadna ogaataa, waxaa lagugu abuuray uurka haweeney oo aad ku dhex noolayd muddo. waxaad cunto uurka hooyada kaga dhex quudan jirtay xarigga mandheerta oo aad ka nuugaysay nafaqo oo dhan. markii aad soo baxday, waxaa lagaa jaray xariggaas. ilaa maanta waa tan calaamadda ku ah. ogow, dumarku siiba hooyada waxay kuu tahay hudheel aad cuntada ka cunto markaad baahato. waxay kuu tahay cusbitaal markaad bukooto. waxay kuu tahay farxad markaad faraxsan tahay. sidoo kale waxay kuu tahay gambaleelka saacadda markaad seexato. ilaa yaraantaadii waxay kaa kicin jirtay furdada. hooyadaa waxay kuu tahay ducatan ugu qaalisan ee uu alla aqbalo. talow hooyo qaalisana, allow karaamee adduun iyo aakhirabo. ilaahay dhammaan hooyooyinkeenna jannatulfirdows ilaaha ka waraabiyo.